soo noqdo wanaagsan engineers haddaynu usoo gudubno qaybta shanaad ee kooraskeena waxaynu kaga hadli doonaa insha allah qaybtan inaad indhahaaga barto dhisaynka quruxda badan. waxaad ku train garaynaysaa ishaada dhisaynka quruxda badan. okay, maxaad samaynaysaa marka? waxaad samaynaysaa waxa ugu horeeya waxa weeye haddaad rabto inaad dhisaynkaaga qurxiso waxaad u baahan tahay inspiration inaad hesho. wax garoonka laga bilaabo ma jiraan. waxaad u baahan tahay meelo badan aad maogtahay isu barbar karto dhisaynkaaga. tusaale ahaan poster baad samaynaysaa ama flyer, dhisaynkaas oo kale meel kale uga dayan kartaa. labo maogtahay dhisayn baad isku dhex dari kartaa. Pinterest baad tegaysaa, kadibna dhisayno badan baad soo degsanaysaa, kadibna mid walba waxbaad ka qaadanaysaa. marka maxaa kasoo baxaya meeshii? wax qurux badan. adigana maxaad ka faa'iidaysaa? khibrad baad ka faa'iidaysaa. laakiinse haddaad isdhahdo marka ugu horeysa garoonka wax ka bilow oo aad scratch ka bilow, wax ku adkaanaya inaad wax samaysidba lagumana talagelin. waa inaad inspiration heshaa. ishaadu marka maxay baranaysaa? ishaadu waxay baranaysaa dhisaynka quruxda badan. wax kuga adkaanaya dhow ma laha. okay, qaabka labaad samaynayso waa maxay? inaad barato principles of design. maxay kaa caawinaysaa inaad fahanto wax kasta meesha u socdaan. sidoo kale design theory inaad si fiican u barato, inaad ka fikiri karto designka, inaad kalarka saxan karto, inaad principles of design og tahay mid walba meeshaad dhigi karto. sidoo kale balance, sidoo kale balancega oo kale, sidoo kale inaad samayn karto movement aad ku dhex samayn karto designkaagi. marka waxyaalahaas oo dhan maxay ka anfacayaan inaad ishaada taran garayso. ishaadu mar hadday la qabsatona si automatically caqlul baadinka ayaa loo dedejinayaa. caqliga maaragtay aan waxba ka lumin ayaa loo dedejinayaa. laakiinse haddii aad maogtahay markasta aad maogtahay aadan fiirin wax kan si detail aan u fiirin, waxa kugu adkaanaysa inaad wax fahanto. qaab kale aad ishaada ku train garan karto waxa weeye inaad design soo qabato. tusaale ahaan google-ka ayaad wax kala soo degaysaa, flyer qurux badan baad aragtay. okay, flyerka markaad soo qabato waa inaad flyerkii furfuri kartaa. waad eegaysaa, kadibna waxaa leedahay okay, wuxuu adeegsaday kalarkan, sababtaasuu adeegsaday, fartuu adeegsaday waa noocan, shapekan uu adeegsaday, waxyaalaha effectiyadu adeegsaday waa kuwa kana. markaad furfurto ayaad waxaad ogaanaysaa wax badan inaad garanayso. laakiinse haddaadan dhisan keliya aadan furfuri karin, waxaa kugu adkaanaysa inaad aadna mid samayso. marka furfuridda aad furfurayso ishaada ayaa ku tababaranaysa, maskaxdaada ayaa ku tababaranaysa. sidoo kale si automatica waxaad u samayn karaysaa wax cusub oo creativity leh. qaybta saddexaad waa maxay? waxyaalaha detailska ah, waxyaalaha yaryarka ah ayaa attention siinaysaa. tusaale ahaan icon ayuu adeegsaday, colors, laba color ayuu wax yar ku kala duway, far ayuu adeegsaday. tusaale ahaan typeface buu adeegsaday, typefaceka headingka uu adeegsaday iyo tan subtitleka uu adeegsaday, wax yar buu kala duway. marka waxyaalahaasa waxaad samaynaysaa si fiican waa inaad u fiirisaa. markasta aad si deeply aad u fiiriso waxaad ogaanaysaa wax cusub. sidoo kale ishaada waa ku tababaranaysaa, maskaxdaaduna way la qabsanaysaa. okay, maxaad samaynaysaa? qaabkanna sidoo kale waxaad ku horumarin kartaa maskaxdaada. sidoo kale ishaada ayaad dhisayn qurux badan bari kartaa. maxaad samayn kartaa? banaanka aad u baxday oo kale, waxaad aragtay box baad aragtay wax ku qoran yihiin ama package yar. waxaad aragtay maxaa la dhahaa boorarka waaweyn oo magaalada ku dhegsan. waad istaagaysaa, waxaad leedahay okay, boorka wax saasaa loo sameeyey, sababtaasaa loo sameeyey, shabaabkaasuu adeegsaday. waa inaad maskaxdaada photoshopka dhex keentaa, kadibna aad ku dhex samaysaa, kadibna aad ku dhex export garaysaa. okay, saasaad heer ku gaari kartaa. design kastoo aad aragtona waa inaad isku daydaa inaad furfurto. adiga maogtahay dadkii caadigaha waad ka timi. qofkan maogtahay graphic designerka markuu noqdo sida uu u arko designka iyo qofka kale siduu u arko way kala duwan yihiin. qofkani waxaa laga yaabaa design busaan u eegayaa, waxaa laga yaabaa inuu ku fikirayo okay, designka noocan sidaan u adeegsaday, qaabkii loo sameeyey ayuu ka fikirayaa, maskaxdiisa ayuu wax ku dhex dhisayaa. laakiinse qofka kale waxaa laga yaabaa inuu waxyaalo meesha ku qorqoran inuu iska akhrinayo. waxyaalaha aan dadka kula taliyo oo ugu waaweyn weeye inaad design furfuri karto. dhisaynada aad badanaa magaalada ku aragto aad furfuri karto. adiga boor ahaan ha u fiirin, waa inaad u fiirisaa ili waxaad ku fiirinaysaa graphic designer, ma ogtahay? marka waa inaad muhiimad gaara siisaa arrinkan. qaybta tani waa maxay? waa inaad practice ku samaysaa. maskaxdaada markaad ku dhisto oo aad maskaxdaada ku dhex export garayso, markaad xaafadda timaado ama aad computerkaaga u timaado waa inaad wixii dhisi kartaa. tusaale ahaan boor baad aragtay qurux badan, boorkaa sawir ka soo qaado, xaafadda la imow, dib waa inaad u samayn kartaa. boorkii kalarada la adeegsaday, fontiska la adeegsaday waa inaad raadin kartaa. waxaas dhan waxay ka caawinayaan maskaxdaada inay ku tababarato dhisaynkii. wixii quruxda badnaana aad soo aragtay inaad dib u samayn karto. tusaalehaan google-ka aad waxaad ka aragtay, pinterestiga tusaalehaan baad waxaad ka aragtay dhisayn qurux badan,
waa inaad dib u samayn kartaa.